waayaha adduunyada wakhtigaa wixii jira waysada aqoontiyo wararkaa taasoona waxa kuugu talagalay wahabkiyo dahaar sare inta ay kaaga weecshaan waxsan kuu tilmaamaan wargaysyada cilmiga in ay kaa waraabshaan waayo sheeg weeye taariikh mug weyn iyo waayihii tagtada jiray psychology waafiya filosofi wuxuu yahay waayo sheega tabiye adna dhagaha weelee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا هورا وصوت تبيني أم باين وصوت تباحني وحين كهل دونا برنامج كذا إني أهرين وكسيس عندنا سيدان برنامج كذا صناع علم نفسي كان حب فكر كقفكا وما حي فكركو إنه سيدا بكلي دونا ونشيرات كل دونا حلقة إنه هورا هاي فكر كام سيدنا هورا وصوت المعمي وحين كهل دونا فكركو ياي يفكركو أنتو قيودو كلا بحو يقفكا إنتين لاقى فكرة قف ماسج اسمه مسيحية صوت قالا أيانو كهذا اللين إن وحين كهل دونا ما أنتنا حب فكر qofku ama sidoo aqliyadu sidoo adeegsado ama fikro maxaa saameyn ku leh ama maxaa si direct u saameeya halqadeenan ayaan kula fikri doonaa culimada psychology-ga amba arinta ku taxalluqa waxay ka hadlaan qofka fikirkiisa inuu saameeyo ugu yaraan 5 qodob halqadeenan waxaynu kula fikri doonaa 2 qodob oo kamid ah waxa ugu horeeya qofka fikirkiisa iyo habdhaqankiisa habdhaqanku wuxuu ka yimaadaa waa fikir waxa ugu horeeya waxa weeyaan labada waalid ayaa ugu horeeya waxa qofka fikirkiisa saameeya labada waalid waa caalamka ugu horeeya qofku ama ilmaha yar markuu soo dhasho isku soo dhaweeya waa caalamka ugu horeeya amba cidda ugu horeysa ee ilmaha yar uu ka barto tajriibada nololeed haday noqoto dareenka haday noqoto kelmadaha dhawaaqooga waliba siiba hooyada ayaa ilmaha yar uu ka helaa barnaamijka ugu horeeya caalamka haday noqoto hadal ku dhawaaqidii oo kale haday noqoto ilmaha yar aqeedadiisa iyo diintiisa nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo soo sheegay inuu ilmaha yar labadiisa waalid ay ka dhigaan amba mid majuusiya amba mid muslim amba mid kristaan sidoo kale ilmaha yar markuu dhasho ilaahay wuxuu ku abuuray amba cid walba dhalato ku abuuray waa fitro saliima cidda leexisa waxa weeyaan waa labada waalid ayaa ugu horeeya fikirka qof waxa ku xiga iyaduna fikirka qofku waxa ku xiga waxa weeyaan qoyskiisa marka labada waalid laga soo tago ka sokow waxa jira qoyskiisa waxa kamid ah walaalihii ilmaadeeradii inaabtigii adeerkii awowgii waxaas oo dhan iyaguna waxay ka qayb qaataan fikirkiisa ka qayb qaataan la dhaqan buu la sameeyaa la falgelid buu la sameeyaa waxbay isweydaarsanayaan sidoo kale waxa la sheegaa ilmaha yar amba qofku bini'aadanka 7 sano ugu horeeya noloshiisa soo koro inay noloshiisa saameyn badan ku yeelato marka ilmaha yar waxa ugu horeeyay barnaamijka ugu horeeyay ee labaad fikirkiisa saameynta weyn ku leh waxa kamid ah waa qoyskiisa wuxuu isku darsanayaa macluumaadka hore waalidkii ka haystay iyo kan qoyskiisa waxay noqonayaan deedna macluumaad aad u xoogan marka fikirkii qofka markiis dambe uu soo xoogaysanaya iyadoo isku tagayaan labadaas tajriibadu ka helay insha Allah ta'ala hadii ay bidna waxaan ku hadli doonaa 3 qodob iyaguna oo kale oo si direct iyaguna u saameeya fikirka qofka iyo habdhaqanka seen hore soo sheegnay habdhaqanku wuxuu ka yimaadaa waa fikirka waxaanu ka hadli doonaa halqadeena soo socodana waa 3 qodob insha Allah ta'ala hadii ay bidmo sidaas iyo nabadgelyo